TV-ga deegaanka Soomaalida ee Star TV ayaa dabagal ku soo sameeyay qaar ka mid ah xaafadaha maamulka magaalada Jijjiga si aan ugu kurgalo bilicda iyo nadaafadda xaafadahaasi maadaama lagu jiro xilli roobaad oo ay ka dhalan karaan qashinka qoyan xanuuno balse xaafadaha iyo goobaha aanu marayna waxaa ka muuqatay qashin aad u fara badan oo isgaargaaray waana mid la oran karo way ka gaabiyeen maamulka magaalada Jijjiga gaar ahaan waaxda bilicda iyo nadaafadda iyo iskaashatooyinka qashinka qaada arrimaha qashinka magaalada dhexdaadsanna waa kuwa in badan soo noqnoqday oo TV-ga deegaanka Soomaalida uu tabiyay waana mid u taala maamulka magaalada Jijjiga gaar ahaan waaxda ay qusayso iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Jijjiga waana kuwan qaar ka mid ah bulshada xaafadaha aanu soo dhaxmaray oo ka hadlaya arrimahaasi qashinka waxa loo baahnaa diyaar garow ballaaran in laga sameeyo markuu roobku soo daayo qashinkii oo yaalla yu roobku soo daaya qashinkii oo yaalla markuu roobku soo daayo meesha waxba qarax baa ka dhacaya waad garanaysaa caafimaad darrada ay leedahay marka waa la iska wada garanayaa marka annaga imika xaafadan aan joogno imika intan in muddo amaan arag wax oo qashin wada baan arag imika arrinta nadaafadda ee halkan taalaay ka hortag maaha waa ka daba tag oo reeri dhibicdii dhulka ku dhacday qashinka dhulkii uu yaalay wixiiba xalay buu qarxay in haddaba lala dagaalamo oo gacmaha la isqabsado oo aan maamul la dhowrin oo cidnaba la dhowrin oo bal nafta la badbaadso yaa ayaan dadka kula talin lahaa oo qabaleeyada iyo dadka maamulka iyo waxa cidina sugno haddaan kuwaa sugno wakaa waxeega ka hadli ma jiro faraha la dhaqdo baa la leeyahay cid kale oo shaqo ku liina ma jirto xafiiska bilicda nadaafadda ee maamulka magaalada Jijjiga waxaan baaq u dirayaa inay xaafadaha maamulka magaalada Jijjiga khaasatan xaafadaha sida gaarka ay u saameeyeen qashimada daadasha sida xaafadda Saraamisti 11aad 18aad 19aad waxaa jira xaafado badan oo ilaa saaka ilaa hadda aan urdaraad la gali karin waayo waxaa jira xanuuno saadogtiinba waxa weeye hadda ka dhashay saameynta dunida caalamka ha u horseeto khaasatan xanuunku dhanka nadaafad darrada walow aan la dhigi karo waxaa ka gaabiyay xafiiska bilicda iyo nadaafadda ee maamulka magaalada Jijjiga ayaa shaqadiisii halka ku seegay waayo waxa inay wacyigelin ballaaran ay u qabtaan waxa weeye shacabka ku nool maamulka magaalada Jijjiga waxaa jira gaadiid loogu talagalay inay qashinka qaadaan goobihii qashinka lagu soo ururinayo oo ku sii fara badanaya maamulka magaalada Jijjiga xaafado ka mid ah khaasatan sida xaafadaha Saraarada oo kale togan weyn ee bridge hoosteeda waa aragtay ma filayaa waxa weeye inay ku bateen qashinka qaabkii loogu ururinayo waxa weeye wacyigelinta noocaas kale xafiiska bixin lahaa ee waxa weeye ka hadli lahaa ee waxa weeye nadaafin lahaa yaa xafiiska waxa weeye bilicda iyo nadaafadda maanta markaad magaalada eegdo waa la dadaalaya laakiin dadaalku mid dhammaystiran maaha dawladda in lagu eego maaha waxaad arkaysaa qashinkii oo inta xaafada laga soo qaado dariiqa bartankeeda war ma dawladdaas soo dhigaysa qushaashka magaalada bartankeeda maaha shacabku waxa weeyaan marka ugu horraysa waa saldhiggii deegaanka waa saldhiggii waa noloshii deegaanka qushaashka horta marka ugu horraysa nin walba intuu xaafadiisa ka soo qaado nuuc kasta leh ee dariiqa la soo dhigayo ee ummadda kale maartay dee lagu xumaynayo taa horta shacabku waa inuu jiro dawladda wax lagu cananta ma jiro waayo laba gacmood baa nahay dawladduna waa gacan shacabkuna waa gacan dawladda ha la soo geliyo qabaleedii ha dadaalaan haddaanu qushaashka soo dhigo qabaleegu qaada yidhaahdo hadduu qabalegii soo tuurayo oo dawladdu qada waxa weeyaan waa gacmo daalis maamulka magaalada Jijjiga oo waxa weeyaan xafiiska gaar ahaan waliba xafiiska ay khusaysaa xafiiska nadaafadda waxa weeyaan wax wacyigelin ah oo waxa weeyaan ku saabsan dhanka nadaafadda iyo bilicda wax bilic iyo nadaafad ku saabsan midna toona ma sheegin oo wacyigelin ilaa hadda ka hor midna toona kama hayno xafiiska bilicda iyo nadaafadda waxa weeyaan waxaan leenahay waxa weeyaan waxa xafiisku u asaasan yahay sidoo u sameyn lahaa waxa weeyaan bilic iyo nadaafad ka muuqata maamulka Jijjiga waa caasimadda deegaanka waxa weeyaan saaka ur iyo qashin awgeed dhex mari karnaa maxaad u malayn degmooyinka iyo gobolladii ka sii hoosayay intaasi kadib waxaan xafiiskiisa waraysi kula yeelanay agaasin ka tirsan waaxda bilicda iyo nadaafadda ee maamulka magaalada Jijjiga oo wax ka weydiinay sababta ay wax uga qaban laayihiin qashinkan inta badan soo noqnoqday ay bulshadu ka cabanayaan way jiraan caqabadaha jira ee waxa weyn iskaashtooyin baa ku qoran hadda lixaad shanaad afraad toddobaad afarta qabaleya soo sheegno afarta iskaashtooyin baa ku qoran iskaashtooyinkii caqabadooda waxa weyn waxaa jirta meelaha ay dadka ay lacagta ka qaadanayaan unbay horta maraan dadkii kale ma dhex marayaan oo sida ma dhex marin xaafadii annaga hadda waxaan wacyigelinay waxaan ku nidhi iskaashtooyin waxaan ku amarray inay soo diiwaangeliyaan ay diiwaangelin sameeyaan xaafadda ay tirkoob ku keenaan tirkoob cidda lacagta bixisa iyo ciddaan bixin iyo cidda ay ka qaadan qashka iyo ciddaan laga qaadin intaa inaan kala ogaano caqabadda laakiin shacabku waxa weyn shacabku ay leeyihiin waxa weyn roob alli mar al roob guto oo waa la soo qodayaa
markuu roobku doo dhan waa la soo qubaa iyada waxaa weyn haddaad tagto adiga gaxsaad intaad masaa gaarigaad qaadadood gaari dhex marta xaafada taado qashin banoomi yaa lagu odhan waayo dadku waxay moodayaan inaan lacag laga qaado haddaad gaariga dawladda maanta dhex mariso waxaa laga yaabaa intayna soo jeeda wajaadaha mayn cid kale inaan soo marin laakiin mar aliya markuu roobku doo laamida lagu soo qubayaa marka caqabada ugu badan shacabku leeyihin horta waa koor taas horumar baan kusoo sameynaa laakiin hadda intii toddobaadkan gudaheeda ganaaxi waan wax ganaxa maanaan bilaabin lakin hadda ganaxa inaan bilowno ay hadda noo qorshaysan tahay waxaa weyn aan dadka ku ganaxno welibana marka hore inaan dadka aan siino wacyigelin aan siino kow talabaad wacyigelintaan siino nahno qofkii iska qaad waxaa qofka markuu iska qaadi waayo agayn mar labaad in la ganaxa markaa inshaar maxamuud xasan SR TV magaalada Jijga